barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e-da waana qaybtii koowaad sheekooyinkii iyo waayihii garaad wiilwaal. dhegaystayaal, goor lagu malo weyn yahay inay ahayd bilowga qarnigii 19aad ayaa wiilwaal wuxuu ka soo ifbaxay galbeedka Soomaalida, gaar ahaan banka Jigjiga iyo dhulka u ogogale ee ay iyadu ugu magac dheer tahay. waxaa dhalay garaadkii qoladiisa u madaxda ahaa ee la oran jiray Garaad Faarax Garaad Xirsi. wiilkaasi markuu u dhashay ee loo mashxaradayna wuxuu garaadku ku sameeyey isaga aabihiis. wan weyn intuu gowracay ayuu Xirsi ugu magac bixiyey. waxay malaha la ahayd magacdaridaasi inay keeni karayso inanka uu awowgii ka raaca tilmaamihii wan wanaagsanaa ee uu lahaan jiray amaba lagu malaynayay. iyada oo weli xambaarsan ayay hooyadii waxay Xirsi ula kacday reer abtigiisa oo dagaankoodu xagga bariga ahaa. sabab ku jiidayna looma sheegine halkaas ayay muddo dhowr gu ah kula maqnayd. habkii nolosha reer aabihii iyo midkii reer abtigii way kala duwanaayeen. halka reer abtigii ay giddigood xoolo raacata ka ahaayeen, reer aabihii xoolaha ka sokow waxay ahaayeen qodato dalaga beerata oo inta badan aan guurguurina meelo aan kala durugsanayn ku nagaata. sida la og yahayna labadaa hab nololeed dadka ku kala abtirsadaayay way kala anshi duwan yihiin. muran badan iyo firfircooni xaddhaaf ah ayaa xoolo raacatada lagu xantaa, beeraydana deganaan, wax u fiirsi badan iyo fakar aamusan. dhirif iyo gacanta oo ka soo horraysa ayaa xoolo raacatada lagu tilmaamaa. kol walba dirir bay u tooghayaan, waxayna ku maahmaahan dagaal gondahaaga ayuu ka dhashaa. beeraydana nabad jacayl iyo dulqaad badan ayaa lagu sheegaa. waa laba dabeecadood oo labada hab nololeed ay ku kala gedisan yihiin, dadkoodana lagu kala sooco. Xirsi oo kuray ah, reer abtigii iyo geeltirannimana ku soo barbaaray, ayaa galbeed iyo reer aabihii dib ugu soo noqday. ileen waa inankii garaadkee markiiba daymo siyaada ah ayaa loo yeeshay. mase wiilasha kale ka fudfudud, wiilasha kale ka firfircoon, wiilasha kale ka waxtoyeesho badan, wiilasha kale ka su'aala dhiiran, wiilasha kalena ka qalab badan oo ka dagaal aqoonsan. intii meel isugu timaadaba isaga unbaa ka soo muray oo wax u teeleeyey. isaga oo aan la magacaabin ayuu madax isaga dhigay. isaga oo aan cidi u shuuminna waa u teliyey. odayadii degmada midkood oo u fiirsaday ayaa yidhi, warkani waa jinni boqor. naanaystaas ayaa muddo loo yiqiin, inkastoo waayadii dambe ay ka hadhayoo loogu beddelay naanays kale oo ku dhegtay, taariikhdana uu ku galay. waa naanaysta uu caanka ilaa haddaba ku yahay ee ah wiilwaal. weli isaga oo aan qaangaarin ayaa geesinimo dheeraada lagu arkay loona qira. maalintii uu 15 jirsaday ayuu colwadeen noqday. guutooyinkii tolka ayuu ammaanduule u ahaaday. da'daas oo kale wiilal ka fooray mooye cid kale hogaamiyenimo kuma hanan jirin. dagaal aqoon, fardadhaarinimo iyo gacan fudayd lala yaabay ayaa barbaarnimadiiba lagu bartay. weligiisna siday wariyeen cid ay isqabteen nabarka lama hormarin. feejignaan siyaada ah iyo tuhun joogto ah oo dad oo idin uu ka qabay ayuu caan ku noqday, kuna tilmaanaaday. had iyo jeer warmihiisa iyo qalabkiisa dagaalka gacantiisu meel aanay ka gaari karin kuma uu ogaan. aabihii Garaad Faarax baa dadka u boqranaaye, isagii baa haleeyayoo inta odaygiiba la iloobay ayaa magacii wiilwaal lagu hadaaqay. nin waliba waa ka baqay, nin walibana ilaahu gacantiisa iga nabadgeli ayuu ku ducaystay. duqii dhalay oo weli ifka saaran ayuu taliyey oo waxna dilay waxna darajeeyey. hadal uu yidhi cidima diidi karin mana asraari karin. nin malagiis galay mooye nin maya kula dhici karayna lama sheegin. geyigu waa geyi colaadeed, dhaca xoolaha iyo dilkuna waa joogto. caanawaa iyo cayrnimo ninkii ka baqaayay wuxuu u tafaxaytay geel uu xoog ku soo taabo. kii dakana laga qabayna kii ka hayay ayuu ka doontay, birtana u tuntay. soomaalida ka sokow waxaa mar walba laga dareen qabay gaara madow oo iyada iyo bartiruhu ay col xiira ah ahaayeen. markaas buu Garaad Faarax soo rogay xeerar cusub oo tolalka kale ee Soomaalidu aanay aqoon jirin. wuxuu guddoomiyey in la ururiyo niman soo jeedayow loo bixiyey oo hawshoodu tahay degmada cirifkeeda inay habeen oo dhan ku wareegaan, inay ilaaleeyaan raad col oo soohdintooda soo galay. haddii ay wax arkaan ama ay wax dareensadaanna ka soo digaan. waa waardiye ama waa gaadh sida aynu hadda u naqaan. wuxuu kaloo garaadku guddoomiyey reerkii ay nimankaasi u tagaanba inuu siiyo neef ishkin ah oo ay qashaan, baryana ay ku noolaadaan. raggaas ayaa wiilwaal lagu daray, iyada oo markaana la sinaayo
cid baa madaxa iyo cid baa manjo ah aan la odhan ha yeeshee wiilwaal oo kale kama suuroobi karin ragba inuu la masoobo dabadeedna maalin maalmaha ka mid a ayuu malaha is yidhi nimanka kula socda maxaa talow ku fashaa si ay u caddaato inaad adigu tahay laboontiga keliya ee aan la labayn wuu fakeray maanka iyo maskaxda ayuu ka shaqaysiiyey alla ilahay hadda ayuu helay galabtii dambe ayuu inta shiriyey ciidankii wuxuu u soo jeediyey xoolaha kolkii ay qashaan oo hilba qaybsiga laysu soo hor fadhiisto in hor iyo abbaato uu isagu yeesho labada cad ee neefka ugu wanaagsan inta kalena uu ka saami qaato isla markiiba wada dareeme wax qaybsi ay ku dulman yihiin in guddoonkaasi xambaarsan yahay cidise way ku dhici weyday inay dood ka celiso oo go'aanka wiilwaal kuma ayaa ka hor imaan kara oo naftiisa nacay hawlaarsan iyo guddoon ayaa dharaartaasna lagu kala dareeray haddii ay sidaa ku socotay ayaa raggii adkaysan waayey markaas bay inta shireen waxay tara ku goosteen war wiilwaal labadan cad ee neef kasta u wanaagsan ma wada heli karo dhaxalna uma uu heline aynu mid ka reebno taladaas ayaa lagu heshiiyey waxaase haddiiba la isku afgaran waayey oo cid dhabarka u ridata la waayey ninkii isaga u sheegi lahaa in labadii cad mid laga reebay wax fooda la iskula jiro oo dhulxariiq lagu foognaadaba ugu dambaystii ayay guddoonsadeen inay iska soo dhex saaraan 3 nin oo go'aankooda wiilwaal si wada jir ah u maqashiiya ballan waxaa laga dhigtay in lagu yidhaahdo wiil waa labada cad iskuma heshid hase ahaatee aan nin keliyihii odhanne weedha dhihiddeeda la qaybsado waxaa lagu heshiiyey ninka koowaadi inuu yidhaahdo wiil waal kan labaadna uu yidhaahdo labada cad kan saddexaadna ugu dambaysta uu yidhaahdo iskuma heshid fiidkii kolkii ay golihii ku soo dhammaadeen ayaa ninkii hore yidhi wiil waal oo degdeg u fadhiistay markaas buu kii labaadna halhaleel u yidhi labada cad oo isna iska aamusay kii saddexaad kolkii uu u hogbaday weedhii la isku ogaa inta ka dhiman inuu ku daro ayaa waxaa daymo kulul ku eegay wiilwaalo markaa warankiisii si wacan gacmaha ugu qaabsaday daymadii qallafsanayd iyo umalkii foolkiisa ka muuqday ayaa ninkii cabsi ba'an ku riday labada bowda ayaa jareeyey garaacii wadnihiisa ayaa waxaa maqlay kuwii garabkiisa fadhiyey nin kasta oo goobta joogay waxaa ka dhaadhacday goorta uu afka ciidda gashan doonaa inay isha baalkeeda tahay halkii laga filaayey in hadalkii hore ee ahaa labada cad uu ku dhammaystiro iskuma heshid ayuu argagaxii badnaa ka yeersiiyey wax aanu uurku doonayn afkusa ka xaday markaas buu yidhi lug laguugu dar kolka ma war baa yaal xan mooyee soo in loo bareeraa ma dhiman maantaa kadib sow labadiisa cad iyo wixii uu doono oo uu ku darsadaa uma garoobin sheeko iyo mahmaah lagu maadaysto